doorasho markay soo dhawaato waxaa la rabaa in laga wada tashi in la galo qaabkay doorashadaasi noqonayso xilligay dhacayso dadka ka shaqaynayo meelaha ay ka dhacayso intaas la rabaa in laga sheekaysto oo la iska waraysto oo lagu heshiiyo walaakiin taasoo dhan ma dhicin arrimo aad moodo inay yihiin jujuub iyo qaabdarro runtii aad u fara badan oo wax u dhimaysa dowlad dhiska qaranka Soomaaliyeed oo dadkii shacabka ahaa ay runtii dhibaato ku tahay marka hadda la fiiriyo gobolka Banaadir baa ugu muhiimsan meesha ay guddigu joogaan oo shaqadu ka socoto diiwaangelintii dhibaata ka taagan degmooyinkii laftoodii dhibaata ka taagan oo degmooyin saameyn ku lahaa gobolka oo saameyn ka xadu ka mid tahay ayaa waxaa dadkeedii doorasho kama qayb gali karaysaan kaa waxay tusinaysaa in bulshadu kala qaybsamayso bulshada qaarkood damiirkooda la dhaawacayo dhibaato weyn u tahay marka anagu mid aan rabno waxay tahay doorasho loo midaysan yahay loo dhan yahay waxa ka soo bixi la wada og yahay waxa ka soo baxayo loo dhan yahay cidna aysan ciil tirsanaynin wada tashi in la galo taasaan anagu aan dhiirigelina taasaan ka shaqaynayna shirka waa mustaqbalka waddanka lagu dooday doorashada hadda socota iyo waxa hadda wax u socdaan iyo in wax wada khaldan lagu socdo oo ay muhiim tahay in wadada lagu soo laabto in dawladda federaalka gaar ahaan hay'adaha fulintu ay la tashadaan bulshada Soomaaliyeed oo si wax la wada leeyahay inuu ka soo baxo doorasho waxa la diidayaa booba la diidayaa doorasho dad gooni ah wataan kula tahay marka waddanka doorasho qof iyo qof inay ka dhacayso maadaama xilwaanadu badankiisa ay ka soo horjeedaan doorasho qof iyo cod waddankan xilligan xaaliga horta inay ka dhacdo way fiicnaan lahayd laakiin lama hayo doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay nabadgelyo dhammaystiran bay u baahan tahay karakoob bay u baahan tahay bulsho wada socotay u baahan tahay oo heshiisku ah intaas laga gaarayna doorasho qof iyo cod oo tii la rabay oo qaabka loo yaqaan xilligan xaaliga qaabkeedii ma diyaar garaysna ammaanahan ma diyaar garaysna dhaqaalahan ma diyaar garaysna siyaasadahan ma diyaar garaysna goboladu intooda badan way maqan yihiin oo iyagu ma diyaar garaysna soo ma aragtaan waa degdeg waa ammaano waa fudayd waa hal martaaba oo keliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay hal taabasho oo keliya